wasiirka ka tirsan xukuumadda Somaliland oo ku sugan magaalada Dubai ayaa waxa ay kulan la qaateen mas'uuliyiinta shirkadda DP World. waxay soo tariyay wararka sheegaya in la hakiyo dhismaha saldhigga military ee Imaraatka ka dhisanayo magaalada Berbera iyo heshiiskii saldhigga iyo kan DP World kula wareegtay maamulka dekedda Berbera oo ay ka mid ahaayeen in Imaraatka dhiso waddo isku xidha magaalooyinka Berbera iyo Wajaale. dhararka wadada ayaa lagu qiyaasay 220 kilomitir waxaana u muuqataa in dalka Imaraatka uu ka cagajiidayo inuu fuliyo qodobkaas oo heshiiska ka mid ahaa. warar uu helayo telefishinka caalamiga ee Saab ayaa waxay sheegayaan in dalka Imaraatka uu sheegay in dhismaha jidkani aanu ahayn mid kaliya uu fulinayo balse uu ahaa mid uu qayb ka ahaa dhismihiisa. madaxweynihii hore ee Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa shalay gaadhay dalka isu tagay Imaraatka Carabta sidoo kale isna waxa dalkaasi ku sugan wasiirka umuraha dibadda ee Somaliland Dr. Saad Ali Shire iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda madaxweyne Biixi. mas'uuliyiintan ayaa kulan la yeeshay xukuumadda Imaraatka iyo shirkadda DP World oo heshiiskeedu qayb ka ahaa inay dhisto jidka isku xidha Berbera iyo Wajaale waxaana la filayaa in ay ka wada hadlaan dhismaha jidka iyo sidii loo dhammaystiri lahaa qodobadii heshiiska. Somaliland ayaa fududeysay wax walba oo ku xidhnaa dhankeeda sida in shirkadda DP World la wareegto maamulka dekedda iyo in la bilaabo wajiga hore ee dhismaha saldhigga, laakiin dalka Imaraatka iyo waliba shirkadda DP World ayaa wali ka cagajiidaya fulinta qodobadii lagu heshiiyay. 22kii bisha ayay ahayd markii dawladda Djibouti ay sheegtay in ay laashay heshiiskii shirkadda DP World ay ku maamuleysay dekedda Dooraale. dawladda Djibouti ayaa bixitaanka heshiiskaasi ku sababaysay inuu ka buuxay khaladaad badan sida in dawladda Djibouti aanay dhisan karin deked kale ilaa iyo fasax ay ka qaadato shirkadda DP World. dawladda Djibouti waxa ay sheegtay in qodobadaasi uu qarannimadooda ku yahay nusqaan. dhankeeda shirkadda DP World ayaa sheegtay in ay dacwad uga gudbinayso qaramada midoobay. shirkadda DP World ayaa gacanta ku haysa dekado badan oo ku yaala badda cas oo ay ka mid tahay dekedda Casaba ee dalka Eritrea. dekadaha kale ee ay gacanta ku hayso shirkadda DP World ayaa waxa ka mid ah dekado badan oo ku yaala dalka Yemen sida dekedda Cadan, Mukalla, Shahar iyo waliba Balxaaf. dhanka kale shirkadda DP World ayaa waxay heshiis la gashay maamulka Puntland si ay u maalgeliso dekedda Boosaaso waxaana heshiiskaasi lagu qiyaasay inuu ku kacayo xoolo dhan 330 milyan iyo 30 sano ay gacanta ku hayso shirkadda DP World. marinka Baabul Mandab ayaa ka mid ah marinada ugu muhiimsan dunida waxaana maalin walba maraakiib sida shidaal ka badan 4 milyan oo foosto. dawladda gacanta ku dhigta ayaa helaysa inay maamusho 12% ganacsiga dunida oo soo mara marinka Baabul Mandab. dawladda Imaraatka ayaa sanadihii u dambeeyay ku baraarugtay muhiimadda marinka badda cas waxaanay wada dadaal ay ku doonayso inay kula wareegto gacan ku haynta, laakiin khilaafkani soo kala dhex galay shirkadda DP World iyo dalka Djibouti iyo xukuumadda Somaliland iyo Imaraatka ayaa noqonaya mid aan Imaraatka meesha soo dhigan una baahan in uu xal u helo si uu u fushado damaciisa.